daawadayaal ku soo dhawaada warbixin aan idinkaga diyaarinay siyaasadda iyo waliba mucaaradada isirka ku salaysan ee xisbiyada mucaaridka ah iyo maayirmowga ee hogaaminayaan ee la damacsan yahay fashilinta wakaaladda biyaha ee Hargeysa xilli ay Hargeysa u baahan tahay gurmad xoogan. haddaba waxaa jira dhalinyaro iyo siyaasiyiin ay soo dhabartaabteen xisbiyada mucaaridka ah kuwaas oo dhammaantood ay isku deegaan ka soo jeedaan isla markaana lacaga lagu siiyay sida ay propaganda uga faafin lahaayeen wakaaladda biyaha ee Hargeysa. wakaaladda biyuhu mar haddii ay ku fashilantay shaqadii qaranka ay u haysay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkado private lagu wareejiyo maamulkii wakaaladda iyo in dawladda hoose iyadu xaq u leh lagu wareejiyo. dawladda hoose waxaanu ka rajaynaynaa in wakaaladda biyaha la hoos keeno oo guri walba biyo la geliyo dad inay maamusho way fiican tahay maadaama dawladdu hoose wadooyinka ku shaqo leedahay. waxaan ka xunnahay waxaan ognahay Hargeysa biyo u baahan tahay oo biyalaada Hargeysa inay raadan tahay shacabka Soomaaliland waa ogyahay dadkeenu ku turkuteenta isku xukuntaa halka waxa naga baxay maqanaysaa wixii la yiri iyo waa la yiri baa ka baxday xaqadan soo taabanay waanu sheegnay maareeyaha hay'adahana aan ugu mahadnaqayaa maareeyaha iyo hay'adii ka shaqeeyo dhan marka maareeyaha codsanayaan warbixin asiyo wuxuu noo bilaabay oo noo casuumay intaas oo hay'ad oo soo tiriyay oo ku hawlan biyagelinta mashruuca biyagelinta inaynu Hargeysa biyo ku filan u helno waa mid loo baahan yahay shacab iyo dawladba inaynu ka wada shaqeyno waxaan ognahay dhul oo manaabaynu ku noolnahay mashaariicda biyaha iyo magaalooyinkuna adduunka way wada koraan way wada socdaan marka waxa weeyaan sanad kasta magaalada kobceeda la saadaaliyo intaas kordhaysa mashruuca biyahana waa lagu talagalaa marka waxa weeyaan inaku intii aan dagaal ku maqnayn iyo muddadii la sameeyay mashruuci hore ka badan 40 sano mashruuca laguma sameyn expansion mashaariicdina laguma sameyn. sidoo kale waxaa jira dhalinyaro kale oo lacag lagu siiyay sida ay cunfi nacayb iyo waliba kala qaybsanaan bulsho uga dhex abuuri lahaayeen bulshada dhexdeeda kuwaas oo baraha bulshada ku faafinaya waraaqo iyo waliba fariimo been abuur ah oo siyaasadaysan. haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya mucaaradka dhalinyarada iyo baraha bulshada ee lagu qorayo fikirada qaldan ee qabyaaladaysan? halkaasi kuma eka hagardaamooyinka xisbiyada mucaaridka ah ay la damacsan yihiin xukuumadda bal aan wada daawano mudaharaadyo ay dhigayaan dadka ay soo abaabuleen xisbiyada mucaaridka ah oo gacan dhaqaale ka helaya maayirmowga oo adeegsanaya warbaahinta deegaankiisa. dawladda dhexe naga daayaan soo faragelin maayirka caasimadda gudoomiyaha la noga dhigo wax kasto deeqo la soo diray wax dhul la qaybinayo anaga Cabdikariim baan ku kalsoonay Cabdikariim la nagu dhibo boqolkiiba boqol waxaan raacsanahay in dawladda hoose dhisto oo maayirka iyo duqa caasimadda iyo gulihiisa deegaanku ay wixii wax laaba gudida la magacaabay ee samata bixinta in gudoomiye looga dhiga maayirka caasimadda Cabdikariim Axmed Mooge. marka xigta waxaan aad iyo aad uga murugaysnay arintii hore arinta ka daran leeyahay waxa loo dhiibay wasaaradda hawlaha guud mid tii hore masiibo ka sii daran ba imkun baabay socotaaba inta deegaanka jooga ee gudoomiyaha caasimadda ninka loo dhiibay isaga hal doora hantidoodii ku baabaday waxaan leeyahay dawladda dhexe la sheegayo in aan isna soo faragelin annagu waxaan ku kalsoonay maayirka Cabdikariim Axmed Mooge. marka mar walba waxaan rajaynayaa waxaygaasi ay nagu soo noqdaan deena nugula dhiibo lacagta iyo dhaqaalaha soo dhacaya Cabdikariim Axmed Mooge. haddaba maayirmowga ma qaadi karaa mas'uuliyadda suuqa waaheen oo ay ku baabaaday lacag kor u dhaafaysa 2 bilyan oo dollar xilli uu horay golaha guurtida uga hor sheegay in aanu maamuli kareynin qashinka Hargeysa. qashin badan baa tuula waxaan markaa mudnaanaha ka mid ahaa magaalada bal inaanu nadiifin ama nadaafadeeda soo celino bilicdeeda nadaafadeed soo celino marka waxay noqotay in la isweydiiyo magaalada intanoo qashin dhex taalo miyaa shaqaale yaroo kooban oo dawladda hoose ay leedahay lagaga gayoonaya marka waxaanu isla garanay inaanu u baaqno shacab weynaha waxaanu dejinay go'aan ahaa oo lala joogtaa oo maalmaha khamiista marka aanu sameeynayni marka magaalada biyaraan baa ka jirta dad baa dhar ku maydha dad baa cabba marka xaaladdu ku jiray
leenahay aanu baaq dheer u diraynaa maayirka cabdikariin axmed mooge oo 26 cod dhalinyartaa ka haya oo halkaa ku jooga inuu mar kaliya cod uu leeyay aanu mar kaliya noogu soo darin intaa uu hadlayay oo shaqaalaha bahweynaha 3,000 way ka badan yihiin maayir mooge oo ka mid ah madaxda dowladda uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxaa soo baxaya falalka guraacan ee laga soo dhiibayo kulamada xisbiyada mucaaradka uu ka qayb galo waxaa mucjiso iyo la yaab ku ah shacabka Soomaaliland in madaxweynihii ku deeqay 1 milyan ee dollar ee ugu horeeyay maanta la yiraahdo lama aaminayo isaga iyo waliba wasiiradiisii waa yaab kale oo shacabka Soomaaliland soo wajahay runtii maayirku wuxuu yiri soo wada hadla intiina bacdiyaalka iyo intiina bakhaarleyda soo wada hadla waxa go'aan ku soo gaadhaan ku soo heshiisayna wada banaysaan maayir mooge iyo xisbiyada mucaaradka ah ayaa olole kaga dhex jira arinta suuqa waaheen xilli madax iyo shacab loo jiheystay gurmadka dadkii ku xoolabeelay suuqa waaheen local council waxa loo doortay waaba shaqadii halkan atakowka ah iyo xashiishka ma dhabba in maayir mooge iyo waliba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ay lacag ku bixiyaan mudaharaadyada suuqa Hargeysa iyo waliba social media waxaan leeyahay dawladda dhexe la sheegayo in aan isna soo faragelin anoo waxaan ku galsoonay maayirka cabdikariin axmed mooge haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay madaxweynaha ka mas'uulka ah 5 milyan ee qof amnigooda iyo waliba hantidooda miyaa la oran karaa shilimaad laguma aamini karo haddaba maayir mooge ma dawladda mise waa danley siyaasadeed qof walbana mas'uuliyadda la saaro ee loo doorto ayuun bay tahay inuu guto marka adeer ma jirto meel aanu ku abaabulno dadna ma jirto maalintii dadka la abaabuli jiray ololana maaha haddaba waxaa mucjiso noqotay in maayir mooge uu madaxweynaha qaranka u quuri waayay mahadcelin xilli uu dad kale halkaas uga mahadceliyay inaan u mahadnaqo ciidamada naftood hurayaasha ee degdemiska ciidamada qalabka sida militariga ciidamada badda socdaalka oo xalay aan ilaa maanta aanu kala tegin hawsha halkan taala haddaba waa kan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku deeqay qaaraankii ugu horeysay oo 1 milyan oo dollar ah dadkii ku waxyeeloobay ama ku xoolo waayay suuqa waaheen isagoo oo gudanaya waajibaadka ka saaran shacabkiisa Soomaaliland xukuumaddu waxay u soo doonaysaa imika 1 milyan oo dollar ay saakay soo doonaysaa dunida si ku hawsho wixii dadweynaha la qabanayo dhammaan wixii maalqabanayo wixii bulshada waxa ka yeelaa hawlgal waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dowladaha rujaarka nahay oo midnala soo hadlay idinla soo burmaday dhammaantood inuu soo tacsiiriyey madaxweynayaasha idinla soo hadleen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa